الله تعالى وبركاته. waxaynu qaadanaynaa maanta ashkii toddobaad ayaan qaadanaynaa. waan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad noola soconataan. aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin. ashka toddobaad oo maanta aad u xiiso badan. kuwa hore xiiso badan bay lahaayeen laakiinse kan uu kasii xiiso badan yahay maanta. soo dhawaada ayaan idin leeyahay. subscribe-tii iyo share-tii iyo like-tii ha moogaanina بالفضلكم. اوكي ونبلغنا عشكا lesson 70 lesson 7 عشكا تضبط greeting salan. اوكي و AUB عشكا يهي oo halkana AUB laba qof baa ku sheekaysanaya badiyaaba cashada soo gelino laba qof bay ku sheekaysanayaan. sababtu waa maxay? waxaynu u baahanahay inaynu barano luqadii ku hadalkeedii inaan barano. marka sentensidan oo badan oo isku tagtagay ayaa la rabaa inay markaa ay ka anfacaan inaad luqadii si fiican oo qurux badan aad ugu hadasho. hello haye cali. hello haye cali, how are you? sidee tahay? hello haye cali, how are you? sidee tahay? I am very fine. aad ayaan u fiicanahay. thanks. waad mahadsan tahay. and you adiguna sidee tahay? so am I. sidoo kale waan fiicanahay. so am I. sidoo kale waan fiicanahay. waa labadii qof bay isugu jawaabaya. how's your job? ka waran shaqadaadii. how's your job? ka waran shaqadaadii. it's fine. way ii fiican tahay. thanks. waad mahadsan tahay. how are your parents? ayuu ku leeyahay kii kale. ka waran waalidka. how are your parents? sidee ayay yihiin waalidka? ereyga parents waa waalidkii weeye. they are very well. aad ayay u fiican yihiin. they are very well. aad ayay u fiican yihiin. dadna wuxuu leeyahay please fadlan gifis iga gaarsii my regards. maxay tahay salaan iga gaarsii to your parents. waalidka waxaad iga gaarsiisaa salaan iga gaarsii. macnaha waxa weeyaan farxad iga gaarsii, igu salaan waalidka. please give my regards to your parents. waalidka igu salaan. okay I will do it. waan yeeli doonaa, waan samayn doonaa insha allah. macnaha waan kugu salaami doonaa weeye. okay I will do it. waan yeeli doonaa, arrintaa waan samayn doonaa. hello haye caasha, how have you been these days? sidee ayaa ahayd maalmaha kan? how have you been these days? sidee ahayd maalmaha kan? not very well. man fiicnayn. not very well. man fiicnayn. I have got bad cold. waxa i helay hargab xun ayaa i helay. okay markuu yidhi hargab xun ayaa i helay ay tiri ayuu leeyahay don't worry ha welwelin. you feel better. waad ladnaan doontaa. aasun si dhaqsaa ayaa u ladnaan doontaa. tankiyo waadna mahadsan tahay. oo qofka badiyaaba markuu xanuunsanayo waxaan ku ninaanaa insha allah waad iska ladnaanaysaa oo kaasaas ayaan ula hadalnaa. marka isaguna wuxuu leeyahay don't worry ha welwelin. you adigu feel better. waxaad dareemi doontaa ladnaansho. waad ladnaan doontaa. aasun si dhaqsaa ayaa u ladnaan doontaa. thank you waa mahadsan tahay. okay good morning. subax wanaagsan. how are you? iska waran. okay I am in a good condition. waxaan ku jiraa xaaladaada wanaagsan. wadaboodiyo adiguna sidee tahay? wadaboodiyo adiguna sidee tahay ayuu ku leeyahay. fine waan fiicanahay. thanks waad mahadsan tahay. by the way marka hore how are you children? ka waran caruurtaadii. they are very fine. aad ayay u fiican yihiin. they are very fine. aad ayay u fiican yihiin. are they doing well at school? iskoolkii ma ku fiican yihiin? are they doing well at school? iskoolkii ma ku fiican yihiin oo ma ku wanaagsan yihiin? well hagaag. xasan is doing well. xasan waa uu ku fiican yahay xasan oo waxa weeyaan xasan is doing well. aad ayuu fiican yahay. bad laakiinse jaamac ninka la yiraahdo isenoti waxa weeyaan waa ciyaal suuq oo isagu maxay tahay kuma uusan fiicnay iskoolka oo inuu dhigto macnaha dhigashada. qofna uu ku fiican yahay qofna uu kuma fiicna. markaas uu leeyahay xasan is doing well. xasan waa ku fiican yahay. bad laakiinse jaamac isenoti. jaamac waxa weeyaan waa nin saaqida oo maxay tahay ciyaal suuqa. ereyga noti waxa weeyaan waa ciyaal suuq weeye. how about your child? adigu ka waran cunugaagii. he
he is fine wuu fiican yahay he isagu is working wuxuu u shaqeeyey hard si adag ayuu u shaqeeyey and he become waxaana uu noqday first one in this term kaalinta koowaad ayuu galay iskoolka oo macnaha kaalinta koowaad ayuu noqday macnaha oo buundada macnaha ardayga kaalinta koowaad gala ayuu noqday he isagu is working wuxuu u shaqeeyey he is fine isagu fiican yahay he isagu is working wuxuu u shaqeeyey hard adag si adag ayuu u shaqeeyey macnaha wax badan ayuu qaybay markuu wax badan sii diyaarsaday he become waxa uu noqday first one in this term macnaha kaalinta koowaad ayuu termkan iskoolkii ka galay Allah that is interesting taasi aad ayay u xiiso badan tahay okay halkan waxaan ku dhamaynay casharkeennii 7 okay cashka xiga okay 10 ayuu ka sii xiiso badan yahay kanana kii hore isagaaba ka sii xiiso badan okay lesson 8 cashka 8aad dialogue wada sheekaysi okay and what do you mean AUB weeye isaguna waa AUB laba qof ayaa ku wada hadlaya marka qof baa la sheekaysanaya qofkii kalena qof su'aal la weydiinaya isaguna wuu ka jawaabayaa okay what do you mean maxaad ka qabtaa what do you mean maxaad ka qabtaa if I ask you haddii ay anigu aski aan ku weydiiyo iyo adiga ee personal question su'aal shakhsi ahaaneed su'aal gaar ahaaneed adiga mid ku gaar ah haddaan ku weydiiyo what do you mean maxaad ka qabtaa dadna xulay never mind waxba kama qabo iyo adigu kan waad awooda ama waad kartaa aski inaad i weydiiso mi aniga waad i weydiin kartaa aski i weydii mi aniga whatever wax kasta iyo adigu weynta doonayso macnaha wax walba never mind waxba kama qabo iyo kan aski mi wadi weydiin kartaa whatever you want wax kasta aad doonayso waad i weydiin kartaa dadna xulay can you give me information about yourself warbixin ma iga siin kartaa naftaada kan madawada iyo adigu give inaad isiiso mi aniga information warbixin ma iga siin kartaa about yourself naftaada warbixin ma iga siin kartaa yes ha ay anigu kan give you waan ka siin karaa my name magacayga is Umar ayaa la yiraahdaa ay anigu was born waxaan ku dhashay and bred oo aan ku barbaaray in Ergafo City caasimadda Ergabo I am student anigu waxaan ahay arday I study waxaan dhigtaa English Ingiriisida ayaan ka dhigtaa waxaana ka dhigtaa at Bauer College baan ka dhigtaa of languages college-ka luqadaha and technology iyo waliba farsamooyinka sida computerka iyo wixii la mid ah farsamooyinkiisa ayaan ka dhigtaa marka Bauer College baan dhigtaa waxaana college-ka luqadaha iyo technology-da ayaan dhigtaa and in the future mustaqbalkana ay anigu weyntii waxaan doonayaa to be inaan noqdo a multilingual person qof luqada badan yaqaan ayaan doonayaa inaan noqdo multilingual luqada badan yaqaan person multilingual person luqada badan yaqaan ayaan doonayaa inaan noqdo okay halka casharkii 8aad ayaan isagana ku dhamaynay okay ashkeena maanta halkaas ayaan ku joojinaynaa casharka xiga إن شاء الله استاذ بريتو لبا وان سوسو نقونينا إن شاء الله هدي إلهي يرادو آدي يوم هتسنتين وانو نايدين كما هدقلنا دقيسيجينا فضلا سي قد بنتا يا سبسكرايبتو أي مهم نوغيين وانا كما هتسنتين بقول كيبا بقول هالكاس أيان كجوجينا وحي سؤال كومنتيغا أي يقولوا وذاك دونتان إن شاء الله وبالله توفيق intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idinkaga tagay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh